burcadbadeed ayaa afduubatay markab shidaal siday oo ay sarnaayeen 17 shaqaalaha kuwaasoo marayay meel u dhow xeebaha Soomaaliya sida ay BBC-da u sheegeen dhowr sarkaal oo amni sida ay saraakiishu sheegeen markabka oo lagu magacaabo Honor 25 ayaa habeenkii Arbacada la qabsaday kadib markii 6 nin oo hubeysan ay xoog ku galeen gudaha markabka xilli uu ku sugnaa qiyaastii meel 30 mayl badda uga baxsan xeebta Soomaaliya. ilaa 3 sano ka hor burcadbadeednimadu waxay si weyn uga yaraatay qaybtan badweynta Hindiya oo hore caan uga ahayd afduubyada maraakiibta balse waxay dib u soo laabatay sanadihii u dambeeyay iyadoo la beegsanayo maraakiib kalluumaysi ama kuwa qaada xamuulka. qabsashada markabkan oo ku sii jeeday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa la filayaa inay kordhiso welwelka ka jira magaalada halkaas oo qiimaha shidaalku 3 jibaarmay tan iyo bilowgii dagaalka u dhexeeyay Mareykanka, Israa'iil iyo Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. markabka la afduubtay ayaa siday 18,500 oo foosto shidaal sida ay BBC-da u sheegeen saraakiil amni oo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. markabkan ayaa ka baxay dekedda Berbera ee maamulka Somaliland 20 Febraayo wuxuuna gaaray meel u dhow xeebaha Imaaraadka Carabta wax yar kadib markii uu bilowday khilaafka sida laga soo xigtay website-ka Ship Atlas. khariirada maraakiibta ayaa sidoo kale muujisay in markabku uu ku wareegayay biyaha u dhow marinka Hormuz kahor inta uusan dib u soo noqon 2 Abriil isagoo u socday dhinaca Muqdisho. markabkan oo hadda ay gacanta ku hayaan burcadbadeed isla markaana siday 17 shaqaale ah, 10 Bakistaani ah, 4 Indoneesiyaan, 1 Hindiya, 1 Sri Lankeys iyo 1 Myanmar u dhashay ayaa la sheegay inuu ku xidhay meel u dhow xeebaha Soomaaliya inta u dhaxaysa magaalooyinka kalluumaysiga ee Xaafuun iyo Bandarbayla. 5 nin oo hubeysan oo dheeraad ah ayaa markii dambe ku biiray markabka Honor 25 sida ilo xogagaal sheegeen. saraakiisha ayaa aaminsan in afduubayaashu ay ka soo dhaqaaqeen aag fog oo u dhow Bandarbayla balse lama yaqaan sida ay u suurta gashay inay dhexda u galaan oo ay kula wareegaan markabka shidaalka. ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ama ciidamada badda ee Midowga Yurub kuwaasoo ka shaqeeya la dagaalanka burcadbadeedda biyaha Soomaaliya.